waxaanu joognaa xarunta Khubura Academy barnaamijyada ay Khubura Academy iyo mu'assasatu tawciya al-islaamiya idin soo diyaariyeen waxa kamida mu'assasatu tawciya al-islaamiya horta maxay tahay marka ugu horeysa hadaynu labada hay'adood kala qaadno mu'assasatu tawciya al-islaamiya waa mu'assasad dacwi ah oo khayrka ka shaqeysa isla markaana aanu bilownay 2001 ilaa 2024 oo imika ku jiro waa mu'assasad soo shaqeynaysay dhalinyarada iyo dacwadda iyo dhiirigelinta dhalinyarada waxaanu ka soo shaqeynay muddo 24 sanadood ah ayaanu ka soo shaqeynay marka waxa weeyaan maanta maxaan idin wadnaa mu'assasatu tawciya al-islaamiya iyo Khubura Academy maanta waxaan idin wadnaa waxa weeyaan la yiraahdo fikratu da'wa ama fikru da'wa ayaan idin soo kordhinay waa maxay fikru da'wa fikru da'wa waxa weeyaan in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo ko inay midayta ku qabsadaan midigta in ay ku qabsadaan kitaabkii quraanka ahaa shariicadii islaamka diintii iyo akhlaaqdii wanaagsaneed in ay ku qabsadaan midigta isla markaana in ay ku qabsadaan bidixdana in ay ku qabsadaan adduunyo marka talleeno abuuray waxa weeye wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maxaa ilaahay adduunyada inoo keenay waa inaynu ilaahay caabudno maxaynu ku caabudaynaa waxaanu ku caabudaynaa sharciga ilaahay inoo soo dejiyay iyo sunnada nabiga salawaatullaahi wa salaamu calayh ayaynu ku caabudaynaa laakiin maxaa laynayda haddana walaa tansa nasiibak min addunya ha iloobin nasiibka aad ku leedahay adduunyada marka maaha inaynu qadaadka u seexano maaha in aynu nidhaahno de waxa weeyaan waxba soo kordhin mayno waxba samayn mayno waxba habayn mayno waxa loo baahan yahay inaan la nimaadno farsamooyin iyo qalabkan quruxda badan ee ardaydu ay gacmahooda ku samaysteen inaynu samayn karayno ayaa loo baahan yahay taasina waa taas marka waxa weeyaan ama khamiis xidhnow oo khamiis soo xidho amaba surwaalba soo xidho ama waxaad soo xidhataaba maxay ahayd qalabkii dharkii shaqada lagu shaqaysanayay mar walba waxa loo baahan yahay qalbigaaga in aynu qalbiga aynu wanaajino oo aynu ku wanaajino diinteena iyo shariicadeena aynu u baahanahay mu'assasatu tawciya al-islaamiya waxay marka idin diyaarisay ad-dacwadii iyo farsamadii oo aad wada dhiganaysaan inta fasaxana la soo xiriira mu'assasada waxaanad kala soo xiriirsaan telefoonka akademiyada oo isla shaashada idin soo dhigi doono 442 59 14 cid kasta oo danaynaysa